Scrub-kan 2 days oo kaliya hadaa gacmaha iyo lugaha marsatid hubaal inay gacmaha iyo lugaha dhalo ku noqonayaan. Maxaa ka fiican scrub natural adiga gacantaada ku samaysatay gacmahaaga iyo lugahaaga ku dayactiro, ku cadeyso, ku dhaqo, ku nadiifso, ku quruxso maasha Allah meel laga helo malahan. Waa scrub yar oo fudud oo gacmaha iyo lugaha cadeynayo, dhaqaayo, wasaqda, madowga, daalka, jacdadka, khayraadda, mugdiga wuxuu dhan ka dejinayo oo nadiifinayo, dhalana ka dhigayo, sidoo kale gacmaha iyo lugahana qurxinayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta ku xiran najax qurxinta soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin dhammaantiin ku soo dhawaada channelkeena najax qurxinta uga barateen waxyaalaha dabiiciga oo la isku qurxiyo. waa walaashina Denise cashar kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wada sida title-ka video ku soo aragteen qaybta ugu horeysa video ku soo daawateen wixii wara wixii hadala hadda qaybta ugu horeysa video-ga ayaan ku soo koobay walaalahayga marka hadda hadalka iyo warka inagu uma badinaaye scrub-kan dheelitiranka oo lagu dayactirayo, lagu hayo gacmaha oo lagu dhaqaayo, lagu cadeynayo, lagu nadiifinayo, lagu qurxinayo ayaan hadda maanta ka soo tuuranaynaa insha Allah. marka igala bogta video-ga soo socdo waxyaabo aynu ka hagaajinayno iyo sidaan u sameysnayno waana ku mahadsantahay mar walba sida quruxda badan ay ila socotiin muuqaalka hadii aad daawatiina like-ta hanaga ilaawinina. bismillaah scrub-kii fududaa oo lagu hayo gacmaha lagu dayactirayay ayaan hadda hagaajinaynaa. marka hore waxaan soo qaatay weel yar oo scrub-ka aan iskula dardarsano. sidoo kale marka koowaad waxaad u baahan tahay xamaam maqribi ayaa u baahan tahay. waxa caaga inoogu jira waxa waaye waa xamaam maqribigii korka lagu dhaqaayay oo lagu nadiifinayo waaye. marka xamaam maqribi ayaad marka koowaad u baahan tahay. xamaam maqribigaana hadda meel kastoo shoobina dukaamanka xataa waa lagu iibiyaa, meelahaas ayaad ka helaysiin insha Allah. xamaam maqribigi ayaan waxaan ka darsanaynaa hal qaando ayaan ka darsanaynaa. intaas aniga aan sameysanayo waad ka badsan kartaa waana ka yareysan kartaa, adiga ayay kugu xiran tahay iyo qiyaastaada. sidoo kale waxaan kaloo aan ku darayaa biyo ayaan ku darayaa, biyo yar oo 2 qaando ayaan ku darayaa. waa biyo caadi ah, meesha aniga biyaha caadiga ka isticmaalayo rose water ama maa'ul warad ama biyaha ubaxa waad ka isticmaali kartaa. xamaam maqribigi iyo biyihii aan isku soo darsanay ayaan hadda wax yar isla dhigayaa. wax yar kadib ayaan isku soo noqonaynaa 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo adiga intii aad dhigi kartid dhig inuu xoogaa milmo ayaa fiican. waan ku soo noqonay aniga xoogaa waan yara daahsanahay ama waan degdegayaa marka ma rabo inaan insha Allah cabaar u isi oolo. waan isku qasayaa hadda 5 daqiiqo camal oo meel noo yaalay 10 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo intaad isticmaalin ka hor biyo la dhig si uu u jilco xoogaa oo u rado. marka haatan waan qasayaa oo u jeedin xoogaa sidii hore uu ka jilcan yahay oo yara uu noo soo jilcay. marka waa kaas wax yar ayaan qasayaa oo aan si fiican biyo xamaam maqribiga hadda aan isku dhexgelinayaa. markii xamaam maqribiga iyo biyo aan si fiican iskugu soo qasay maasha Allah hadda sidaas ayuu inoogu soo baxay. xoogaa qaarna waa soo burbureen qaarna xoogaa waa taagtaagay. xamaam maqribiga qaybna xoogaa waa iska taagtaagaya marka laakiin alaabaha ku dardarsano ayuu iska jilcayaa oo iska dhalaala iska burburaya. waxaan ku daray oo cad waxa waaye waa bariis shiidan waaye. bariis shiidan ayaan ku daray waa bariis cade shiidan waaye. sidoo kale waxaad kale u baahan tahay qasil ayaa u baahan tahay. qasil ayaan ku darayaa qaandaha foo qasil ayaan ku daray. waa qasilkii caadiga ahaa oo korka la marsanayo waaye walaalahayga. sidoo kale waxaad kale u baahan tahay shumburo ayaa u baahan tahay. shumburo ayaan ku darayaa qaandaha foo shumbura ayaan ku darayaa. shumburahana isagana hadda waa ogtiin maasha Allah korka dhalo ka dhigaa wuu nadiifiyaa wuu dhaqaa wuu cadeeyaa inaba caadi ma ahan lagama warami karo. sidoo kale waxaad kale u baahan tahay scrub ayaa u baahan tahay. scrub-ka korka ayaad u baahan tahay loo isticmaalo midka aniga haatan isticmaalayo wajiga iyo korka labadaba waa la marsan karaa ayaa ku qoran. marka scrub ayaa u baahan tahay midka saruuda ayaa aniga isticmaalaya in scrub oo aad heli kartid ayaadna isticmaalaysaa insha Allah. scrub-ka ayaan ku soo darsanay oo hal qaando ah. sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa liin dhanaan ayaan ku darayaa hal jab oo liin dhanaan ah ayaan ku miirayaa sida u jeedin. liin dhanaantan hadda ayadana korka way u fiican tahay way nadiifisaa way dhaqdaa dhalaal qurux badanna maasha Allah way ka dhigtaa. alaabtii ayaan hadda isku qasayaa oo aan isku soo dardarsanay ayaan si fiican iskugu qasayaa oo aan si fiican isku dhexgelinayaa. xoogaa way yara adag tahay marka waxaan ku darsanaynaa biyo ayaan ku darsanaynaa. waxaan ku darayaa xoogaa yar oo biyo ayaan ku darayaa waa biyo cad waaye. meesha aniga biyahan cad ka isticmaalayo rose water ama maa'ul warad ama biyaha ubaxa sidii aad u taqaanid waad ku darsan kartaa
ama waad ku bedelan kartaa. Alaabta ayaan hadda si fiican isku qasaya oo aan si fiican isku dhexgelinaa. Alaabta inaba caadi maan. Marka koowaad isticmaashid ayaad ka dareemaysaa lugahaaga iyo gacmahaaga. Alaabta hadda markaan isku soo qasay oo aan si fiican isku dhexgeliyay maasha Allah sidaas smoothka ayay hadda inoogu soo baxday. Xamaamo maqribigii markii hore taagtaagnaa u jeedin hadda wax taagtaaga ma lahan. Asagii dhan wuu soo baabay maasha Allah wuu soo milmay. inaba caadi maahan. Hadda alaabteena fududeed iskaraabkeena fududaa sidaas ayuu diyaar inuu yahay. Haatan oo kaliya wuxuu u baahan yahay jag la isku siiyo oo la isticmaalo. Marka sida u isticmaalaysa waxaa sameynaysaa marka hore lugaha iyo gacmaha ayaad iska soo dhaqaysaa, iska soo nadiifinaysaa. Kadib ayaa iskaraabkan lugahaaga iyo gacmahaaga aad marsanaysaa. Markaad lugaha iyo gacmaha marsatid haddaa bac heli kartid lugaha iyo gacmaha gasho 15 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ku joog oo ku hay. Sidaas oo kale ayaa iskaraabka lugaha iyo gacmaha aad u marsanaysaa oo aad ugu rugaysaa. Kadibna bac yar raaso lugaha iyo gacmaha gasho 15 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo intii aad jaanis heli kartid ku hay oo ku huuri iskaraabka lugaha iyo gacmaha. Kadibna iska mayr oo iska dhaq. 2 maalin oo kaliya haddaa isticmaashid oo isku xigto hubaal gacmahaaga iyo lugahaaga inay dhalo ku noqonayaan. Marka koowaad iskaraabkan isticmaashid ayaad lugahaaga iyo gacmahaaga ka dareemaysaa. Taasina waa hubaal waa waxa aniga arkay maasha Allah. hal mar isticmaalay waa isku bogbogobay. Maxaad u maleynay marka 2 maalin oo kaliya oo isku xigto haddii aad marsatid week kasta 2 maalin oo kaliya ka isticmaal maadaama waxa waay gacmaha iyo lugaha hadda shaqo badan gacmaha lagu qabanaa lugihiina hadda ayagana kama yareystaan oo lagu soconaya. Busta wasaqda wax walba qabsanaya marka waxa waay caadi ma lagama warrami karo. Isbuuci 2 maalin oo kaliya ka isticmaal oo lugaha iyo gacmaha marso. Gacmahaaga iyo lugahaaga quruxdooda iyo dhalaalkooda iyo cadaantooda iyo iftiinkooda adaa hadda ka yaabi doontid insha Allah. Aniga xaasid miihi wax walba ii shaqeeyo oo aan ku faa'iido waa inii soo gudbiyaa. Hadda waa ini kaasa fiidiyogeena maanta intaas ayaan ku soo afmeeraya insha Allah. waa inoo kulati dambe oo xiiso leh iyo aniga inii sido fiideo kale cusub walaalahayga. Fiidiyogana sii share garee si ay walaalo badan uga faa'iideystaan oo mar walba jecel jirkooda inay waxyaabaha dabiiciga ku qurxiyaan walaalahaas oo kala u baahan u sii share. Waxaan kale oo inka ilaahay alaabtan korka xataa waad ku dhaqan kartaa oo waad ku mayran kartaa. Sidoo kale alaabtan waad dhigan kartaa isbuuc way ku ooli kartaa iyo ka badan. Fridge-ka qaybta hoose dhiga weel yar oo isku daboola intii aad ku shubatid. Hadda muuqaalkeena maanta intaas ayaan ku soo afmeeraya insha Allah. Janaalka haddii aad ku cusubtaan soo dhawow minankaaga waaye. Janaalka inoo subscribe garee inoo like garee. Haddii aad hore noola joogtan waad ku mahadsantahay mar walba sida quruxda badan ay noola joogtid muuqaalka. Haddii aad daawatiinna like taa naga ilaawin like ta waa dhiirigelinteena koowaad.